kusoo dhawaataan daawadayaal warbixin laga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo adduunyaha oo uga qayb qaadan doono xagga falooyinka Cabdulkariim Xasan. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qodobada ugu doorkaroon warkeena habeenkan caawa ee xagga telefishinkana waxaa ka mid ah golaha baarlamaanka ee dalka oo maanta uu furmay kalfadhigii labaad ee golaha baarlamaanka ee loo dhanyahay kaasi oo noqon doona kii ugu dambeeyay ee baarlamaanka hadda shaqeeya. dhinaca wararka caalamka gaar ahaan waxaa ka soconaya dagaalo xoog leh oo lagu hoobtay dagaaladaas oo ka socda magaalada Laascaanood waxay u dhaxeeyaan ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo kooxda ama ciidanka jamhuuriyadda la baxday Soomaaliland. caasimada Muqdisho waxaa ka dhacay maalintii shalay dagaalo ay ku dhinteen 8 qof. dhinaca qaaradda Afrikana midowga Afrika ayaa sheegay in aan laga helin haba yaraatee kooxihii ka dambeeyay dil loo geystay maalintii Sabtidii 10 ka mid ah ciidanka nabad sugidda Afrika ee ku sugan gobolka Darfur ee ku yaala galbeedka waddanka Suudaan. intaasi daawadayaal waa qodobadii haatan u diyaargarowda faahfaahinta warkayaga habeenkan caawa. warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta dambaal hambalyaha u diray madaxweynaha dhigiisa ee dalka Shiinaha Hu Jintao oo dalkiisa looga dabaaldegayo maalinta qarannimada oo iyadoo asal guristii koonfurad uu ka soo wareegay qarannimada waddanka Shiinaha. madaxweynuhu waxaa dambaalkiisa uu ku rajeeyay cilaaqaadka saaxiibtinimo iyo iskaashi ee u dhaxeeya Jabuuti iyo Shiinaha oo sii xoogaysta. waxaana fursadan uga faa'iideystay mudane Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo u rajeeyay horumar iyo barwaaqo madaxweynaha waddanka Shiinaha iyo shacabka waddankaasi Shiinaha. golaha baarlamaanka ee dalka ayaa maanta isugu yimiday kalfadhi furitaan u ahaa kalfadhigii labaad ee caadiga ahaa ee loo dhanyahay ee golaha baarlamaanka oo maanta lagu qabtay guriga ummadda ee caasimadda Jabuuti. howlaha fadhigani waxaa daadihinayay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Idris Arnaud Ali waxaana ku kulmay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Dileeta Maxamed Dileeta xubnaha xukuumadda xildhibaanada baarlamaanka adeejiyaasha wadamada caalamka iyo guusimada u fadhiya wadamada caalamka dalka iyo shakhsiyaad kale. furitaankii kalfadhigani waxa uu ku soo beegmay bisha barakaysan ee Ramadaan iyo doorashooyinka xagga baarlamaanka oo waqtigoodu ay soo dhoweeyeen kuwaasi oo ku beegan sanadka fooda lagu soo haya ee 2008. kalfadhigani labaad waxa uu noqon doonaa kii ugu dambeeyay ee baarlamaanka hadda shaqeeya. waxaana halkaasi ka hadlay Idris Arnaud Ali gudoomiyaha golaha baarlamaanka. fadhigani maanta furmaya waxa uu yahay kii ugu dambeeyay ee iskugu yimaadaan xubnaha golaha baarlamaanka waayo waxaa fooda lagu soo haysa doorashadii lagu soo cusboonaysiinayay xubnaha baarlamaanka oo dhici doonta bilowga sanadka 2008 ee lagu soo heedan. anigoo haddaba fursadani ka faa'iidaysanaya waxaan jecelahay inaan si kooban u dulmaro dadaaladii hirgalay muddadaasi. xukuumaddu xaaladdu waxa ay si la taaban karo u wanaagsanaatay xilligii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle loo soo doortay jagada madaxtinimada ee dalkeena kaasi oo isagu si aad ah ugu dadaalay sidii uu kor ugu qaadi lahaa waxyaha kala duwan ee siyaasadeed ee dalka. waxaana hadda soo xirantay diiwaangelintii falalka cusub ee doorashooyinka waxaana jirta in codbixiyayaasha reer Jabuuti aanay gayahaantooda isku diiwaangelin falalkaasi cusub. sidaasi darteedna madaxweynaha jamhuuriyaddu mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu ku daray muddo bil ah taariikhda ay soo xidhmi lahaayeen falalkaasi cusub isdiiwaangelintooda. haddaba waa inaan ku boorino kuwa iyagu dib uga dhacay falalkaasi inay gaaraan oo ay isdiiwaangeliyaan. intaasi ka soko waa inay xildhibaanadu isku diyaariyaan doorashadaasi xagga baarlamaanka ee ka qabsoomi doonta sanadka 2008 lagu soo foolo dalkeena gudihiisa oo uu mid walba baraarujiyo dadka ku dhaqan degmadiisa. et contrôler efficacement l'action du gouvernement. Tout n'est pas parfait, loin s'en faut.
رئيس الوزراء جمهورية مدن دليتا محمد دليتا ayaa khudbad ballaaran ka jeediyay isaguna afuritaanki kalfadhiga labaad ee loo dhanyahay ee golaha baarlamaanka waxaana ugu horeyn uu tilmaamay sida uu walwal qabo hoos u dhaca laxaad kale ee kartida wax iibsi ee ummadda reer Jabuuti xilligan oo qiimihii uu inta soo shareeray fadhigeennani waxaa ku soo beegmay xilli sixir barar uu ka jiro dalkeena qoysaska reer Jabuutina ay dhexda u galeen akhrashadii iskoolgalka iyo bisha barakaysan ee Ramadaan xukuumaddu taasi iyadoo ka warqabta ma jirto wax dadaal ah oo ay la hadday si ay kor ugu qaado mushaharka shaqaalaha dawladda iyo kuwa howlgabeennadaba waxaana aan ku tallaabsanay inaan darajooyinka loo kordhiyo shaqaalaha fonksiyonarka iyo konfensiyooniga loo yaqaano taasi oo loo qoondeeyo lacag dhan 500 oo malyan oo faranka Jabuutiya iyadoo sanadka 2008 loogu talagalay hawlahaasi lacag dhan 780 malyan oo lacagta Jabuutiya gees kale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxa uu bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed ugu yeeray kuwa ka faa'iideysanaya sixir bararku inay joojiyaan qiimaha ay buubuurinayaan dhinaca kale waxaa jirta in la ururiyay hay'adda Jabuuti ee horumarinta bulshada oo ka dhalatay isku darka hay'adihii adeegtiib iyo FSD hore loo oran jiray taasina waxay qayb ka tahay hindisaha madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele ee ku waajahan la dagaalanka saboolnimada isla qodbadiisa qayb ka mid ah ra'iisul wasaare Dilleyta Maxamed Dilleyta waxa uu ka warbixiyay waxqabadka xukuumadda isagoo hoosta ka xariiqay jihooyinka howlgallada xukuumadda sanadada fooda lagu soo haya kharashka laga soo hordhigay dowladda waantu waxa uu ku qiyaasay ilaa 60 milyan oo faranka Jabuutiya kaasi oo boqolkiiba 4 ka sareeya kuwii hore waxaana uu ku salaysan doonaa qiimo gaar ah oo la siiyo waxqabadka dadka oo ah istiraatiijiyadda horumarineed ee dalkeena xukuumaddani waxay door bidaysaa dhammaan carruurta oo dugsiyada waxbarashada la geeyo isla markaana la wanaajiyo tayada waxbarashada ee dalkeena ka jirta taasina waxaa laga arki karaa oo u markhaati kacaysa tirada ardayda sanadkan gashay dugsiyada waxbarashada hoose oo lagu laab ahayd sidoo kale waxaa iyadana dadaal xoog la saaray xagga caafimaadka oo howlo waaweyn laga hirgashay iyada oo ay halkeedii ka sii socdaan tallaabooyinka lagu xakameynayo xanuunada sidaaga qaaxada iyo weliba duumada ama kaneecada waxaa sidoo kale xukuumaddu ay isku taxallujisay sidii ay wax uga qaban lahayd waxyaha guryaha iyo weliba la dagaalanka haraadka muddadaasina oo dhan xukuumadda iyo golaha baarlamaanku waxay si xoog leh iskagu kaashadeen sidii ay si wanaagsan ugu shaqayn lahaayeen shicibka reer Jabuuti imika iyo haatan waxa aynu soo gaadhnay xilligii ay dalkeena ka qabsoomi lahayd doorashada xagga baarlamaanka oo muddo bil ah dib loo dhigay xilligii ay soo xirmi lahaayeen isdiiwaangelinta faylalka cusub ee codbixintu waxaa laynooga baahan yahay haddaba inaan si caddaana barnaamijkeenna aan ugu soo bandhigno dadweynaha reer Jabuuti isgaarsiinta kadib 3 bilood oo si bilaash ah looga faa'iideystay nidaamka dambaalada la iskugu diro telefoonada gacanta ee loo yaqaano SMS waxaa maanta shirkadda isgaarsiinta Jabuuti Telecom ay soo saartay qiimayaal u xadeysan isticmaalka SMS-ta qiimahan cusub ee lagu soo rogay adeegsiga isku-gudbinta dambaalada dhinaca telefoonada mobilka waxa ay yihiin laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 habeenimo waxaa
وقرية 10 فرن سيدة هبينما نفتر الصباحنما والله 20 فرن قارة كمد أهل جيبوتي أيا إيجو قيمها نعصب آد أدلولي وان جعليسن بس دادك يدو له قوبها التلفون لقد درتولي يقانو كاريوكا أيا آد السودو وطلابدني إيجو هوري بلاش نمدا SMS تابين على التلفون لدى قعنتو أي كوها السيد ولا يسوي وكي ملبي دا لقلي وايه ولا التلفون سوايه لكن على ذلك جت مدرك الرئيس قسم ولا من تيجي شو تمر استدمر الرئيس 10 francs par message envoyé c'est trop cher si on envoie 3 messages c'est déjà un appel il faudrait mieux qu'on fasse un appel que 3 messages parce que 3 messages c'est pas complet pour parler avec un ami d'autres استعملوا هاني لكن يوفي نجد مركز أنا صدق بلاش لا يدري إنه كان التوفر وقالوا يعني وليه 10 francs هنا 5 2 francs 3 francs لا يدري إن شاء الله 10 francs c'est trop cher dhinaca Soomaaliya dagaalo kulul oo lagu qabtay ayaa ka dhacay magaalada Laascaanood waxaana dagaalkani u dhaxaynaya ciidamada dowlad goboleedka Puntland iyo ciidanka Jamhuuriyadda la magac baxday Somaliland warkan oo faahfaahsan waxa ka soo gudbiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wariyaha noo fadhiya Xamar Muxtaar Maxamed Hiraabe ليس هذا كنوعين كلا دوان يا ساكي برقن كي كذا حيث كمجالة اللاصعانو قبل كسول الدقالة هو دحية عيدمة Somaliland وكوة دولة قبلات كبوتلان ayaa sida ay ku bilowdeen waxa ka soo baxay warar isbarasan ayadoo wararka qaar ay sheegayaan in dagaalku uu ka dhashay dilka nin ganacsada reer Laascaana oo laysoo taageersan Somaliland oo ciidamada daraawiishta Puntland ay ku toogteen bartamaha magaalada Laascaano halka warar kalena ay tilmaamayaan in dagaalku ku bilowday bilaan ay soo qaadeen ciidamada Somaliland ay ku soo qaadeen kuwa Puntland warjoogayaal ku sugan magaalada Laascaano ayaa waxa ay sheegeen in dagaaladu ay ka soconayeen magaalada meel magaalada u jirta 12 kiiloomitir anagoo qarasaaso iyo daryanka madaafiicdana si xoogan looga maqlayo magaalada Laascaano waxaa kaloo ay wararka laga helayo Laascaano ay sheegayaan in gudaha magaalada Laascaano ay ku arkeen baabuurta dhaawacyada lagu qaado ee Puntland ka imaanayay dhinaca aagga dagaalka kuna sii jeeday dhinacyada isbitaalka inkastoo aan si guud loo caddayn karin dhimashada iyo dhaawaca labada dhinac toddobaadkii la soo dhaafay ayaa xiisado dagaal waxa ay ka taagnaayeen goobta maanta koorimaadku ka dhacay ayadoo mararka qaarna madaafiic la isweydaarsanayay laakiin lama saadaalin karayo heerka ay dagaaladani gaari karaan waxayna ku soo beegmeen xilli ay qayb ka mid ah magaalada Laascaano ay ku sugan yihiin xoogada u dhashay magaalada taabacsanna Somaliland kuwaasoo sheega in ay iyagu ka mid yihiin ciidamada Somaliland geeskalana ganacsatadii iyo weliba isu socodkii gaadiidka iyo dadka ee wadada aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa maanta dib u soo laabtay kadib markii ay ka guureen wadadaasi ciidamada ka tirsan dowladda ku meel gaarka oo muddo 2 toddobaad halkaasi ay fariisin wahayd waxaana maanta ay isu diyaarinayay ganacsato iyo weliba qaybo kala duwan oo ku sugan amaba ku teedsan wadadaasi aadan cadde oo bilaabay in ay howl u bilaabaan ama ay u diyaargaroobayeen dib u howl bilaabaan kadib xayirnaansihii saarneyd wadadaasi aadan cadde goobaha isu diyaarinayeen howlahooda dib u bilaabaan waxaa ka mid ahaa idaacadda Shabeelle oo hawada ka maqan muddo 14 maalmood kadib markii ciidamadu ay rasaaseeyeen dhismihii ay ku taalay wariyaasha iyo maamulkana ay u hanjabeen Muxtaar Maxamed Hiraabe RTV Muqdisho isla caasimadda Muqdisho ee dalkaasi Soomaaliya oo qodobka ugu dambeeyay Muxtaar ka hadlayay wakaaladda wararka ee AFP ee dalka Faransiiska ayaa qortay in ugu yaraan 8 qof ay si gooni ugu dhinteen dagaallo ka dhacay maalintii shalay caasimadda Muqdisho ee dalka Soomaaliya goobjooge ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ku warramay in 3 nin oo ku wareysnaa baastoolado ay ku dileen 2 nin suuqa ugu weyn caasimadda Muqdisho ee lagu yaqaano suuqa Bakaaraha sidoo kale askari ka mid ah kuwa dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa lagu dilay isagana isla maalintii shalay waqooyiga caasimadda Muqdisho madaxda hawsha ciidanka midowga Afrika ee nabad sugidda gobolka Darfur ee galbeedka waddanka Suudaan
ayaa maanta ku dhawaaqay inay ka go'an tahay sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa dadkii uu ka dambeeyey weerarkii lagu soo qaaday sabtidii xero ay lahaayeen ciidanka midowda afrika ee ku sugan gobolka darfuur ee ku yaala waddanka sudan oo colaad sokeeye ay ka taagan tahay warbixin ka soo baxday xarunta midowda afrika ayaa lagu sheegay in sidoo kale in 10 askari ay ku dhinteen weerar loo geystay sabtidii dhinaca xero ay lahaayeen ciidanka darfuur ku sugan warbixintani waxaa kula sheegtay in 8 askari ay ku dhaawacmeen falkani afarta kalena la leeyahay meel ay mareen 10 askari ee la dilay waxa ay kala ahaayeen 7 u dhalatay waddanka Nigeria 2 korjoogayaal military oo u kala dhashay Mali iyo Botswana iyo mid u dhashay waddanka Senegal sida uu sheegay Saïd Djilit oo isagu ah gudoomiyaha dhinaca nabadda iyo ammaanka ee midowda Afrika gudoomiyaha nabadda midowda Afrika waxa uu ka warbixiyay inuu si aad uga xumaaday tallaabadani weerarkani waxaa lagu qaaday ciidanka midowda Afrika gaar ahaan waxaa si aad loogu qaaday xero ay lahaayeen oo ku taala dhinaca Darfur waxaana weerarkaasi uu yahay mid si aad uga hortay ciidankaasi waxaana weerarkaasi loo geystay xerada lagu magacaabo Haskanita oo ku taala koonfurta Suudaan weerarkani waxa uu ahaa kii ugu dhimasho badnaa ee loo geysto ciidanka ku sugan Darfur ee midowda Afrika waxaan ku sabaynay weerarkani iyadoo ay joogaan caasimadda Khartoum ee waddankaasi Suudaan koox caalami ah oo ku hawlan nabadda gobolka Darfur waxaana ninkan oo kamid ah kooxdaasi uu sheegay inuu si aad uga xumaaday weerarkaasi midowda Afrika qaramada midoobay iyo midowda Yurub ayaa si aad u cambaarayay weerarka loo geystay ciidanka midowda Afrika sida laga warqabo 27 bisha Oktoobar ee maanta bilaabatay ayaa lagu wadaa in lagu qabto magaalada Tripoli ee caasimadda dhinaca waddanka Liibiya ashir ay isugu imanayaan madaxda Suudaan iyo fallagooyinka ku kacsan ee gobolka Darfur isla gobolkaasi Darfur madaxweynaha waddanka Senegal Abdullahi Wade ayaa ku dhawaaqay inuu kala soo bixi doono ciidamadiisa ku sugan gobolka Darfur haddii ay cadaato ayaa yiri askariga la dilay oo dhashay waddanka Senegal inuu haysan haba yaraatee wax hub ah oo isku difaaco isagoo ka hadlayay Abdullahi Wade madaxweynaha waddanka Senegal shijra inuu ku qabtay maanta caasimadda Dakar ee waddanka Senegal ayaa waxa uu yiri hadday cadaato askariga iga dhintay inuu haysan wax difaac ah waan kala soo baxayaa ciidamadooda jooga gobolka Darfur qodobkaasi ugu dambeeyay daawadayaal war wixii laga soo gaaray caawa dalka iyo caalamka oo igala qayb qaatay dhinaca faalooyinka Cabdulkariim Xasan Maxamed waxaad naga daawaneyseen oo nagala socoteen telefishanka Djibouti iyo dabcan aaladda internetka iyo satellite-ka oo inta badan aad looga isticmaalo amana loo socdo waxaan idin tagayaa dhammaantiinba kadib ku middoona habeen dambe saacadan oo kale nabadgelyo iyo ammaan Allah waxaan u mahadnaqayaa farsamayaqaanada inuu soo gaarsiiyay sawirada iyo codadka warka habeenkan caawa